haramcadku waa mid ka mid ah bisadaha waaweyn isla markaana ku midaysan qoyska la yiraahdo Felinae. haramcadku dood iyo shaki la'aan waa xayawaanka ugu dheereeya, xawaarihiisuna waa hubka iyo awoodda ugu weyn ee uu ku tiirsan yahay. waa mid la dhihi karo waa shimbir ku duula lugihiisa, wuxuuna awoodaa inuu saacadii jaro 100 ilaa 120 kilomitir. in uu xawaarihiisa ugu badan helana waxay ku qaadataa 3 ilbiriqsi oo keliya. waa mid ka mid ah naasleyda kuwa dhadigna ay caruurtooda siiyaan caano. sidoo kale wuxuu ka mid yahay haramcadka kuwa dhiigoodu diiran yahay. sida aan wada ognahay waa carnivore ama hilib cune, wuxuuna inta badan ugaarsadaa xayawaanada yaryar sida shimbiraha iyo bakaylaha. wuxuu kaloo ugaarsadaa kuwa says ahaanta dhexdhexaadka ah sida deerada iyo doofaarka. waxaana xusid mudan inuu mararka qaar isku dayo inuu ugaarsado dameer farowga. haramcadku xilliga uu wax ugaarsado waa maalintii, maxaa yeelay waa mid arag ahaan wax u ugaarsadaa oo aan dhanka urinta ku tiirsanayn. araggiisu wuxuu aad u fiican yahay kolka ay qoraxdu soo jeedo, wuxuuna wejiga ku leeyahay xariiq la moodo ilin madow taasoo ka dhinta dhaldhalaalka badan ee qoraxda. sidaasi daraaddeedna wuxuu awoodaa inuu maalintii wax ka arko bed ku dhow 5 kilomitir. wuxuu jecel yahay dhulka leh cooska dhaadheer ee uu isku qarin karo, wuxuuna ku caan yahay kolka uu fulinayo howlgalka inuu hal mar sameeyo xawaaraha ugu badan ee uu awoodo. awoodda ugu weyn ee uu ku faano waa xawaarihiisa degdega ah, laakiin midda uu ku liito waa dhanka joogtaynta orodka oo haddii uu gaaro xawaarihiisa ugu sareeya ma awoodo inuu orodka sii wado wax ka badan 30 ilbiriqsi. waana taas sababta uu u niyad jabo haddii uu si dhaqsi ah u qaban waayo noolaha uu doonayo inuu dhulka dhigto. wuxuuna inta badan socdaa howlgalkiisa ceersiga ah wax ka yar 1 daqiiqo. sidoo kale kolka uu disho ugaartiisa wuxuu ku qasban yahay inuu si degdeg ah u cuno si aysan u arkin uguna xoogin bisadaha ka waaweyn sida libaaxa iyo leebaadka aan shabeelka u naqaano. xitaa mararka qaar waxaa dhac u geysta waraabaha, maxaa yeelay haramcadku waa mid ayaga ka xajmi iyo awood yar una samaysan hab orod iyo xawaarayn ah. inta badanna waa mid iska ilaaliya dagaalka bisadaha waaweyn, waana mid xitaa mararka qaar isdhiiba haddii uu dagaal ama iska caabin kala kulmo noolaha uu ugaarsanayo. yacni gebi ahaanba waa mid dagaalka neceb. midda kale ee uu kaga duwan yahay bisadaha waaweyn waa dhanka codka ama qaylada ay sameeyaan, maxaa yeelay haramcadku wuxuu u dhawaaqaa sida bisadaha yaryar, wuxuuna sameeyaa cod la yiraahdo paar oo ay bisadaha yaryari sameeyaan. sidoo kale marka uu u baaqayo ama u wacayo haramcadyada kale wuxuu u dhawaaqaa si aysan u dhawaaqin bisadaha kale ee waaweyn. sidoo kale marka la eego bisadaha waaweyn, haramcadku waa midka keliya ee aan awoodin inuu laabo inta hore ee lugihiisa cidiyuhuna ku yaalaan. magaciisa cilmiga ah ee loo yaqaano waa Anxiononikis jabatus. Anxiononikisna waxaa loola jeedaa dhaqdhaqaaq la'aanta lugaha gaar ahaan inta hore, waxayna dhankan aad isaga shabahaan eyga. waana mid ka mid ah siraha haramcadku uu dheeryahay bisadaha kale, xawaaraha sareeyana uu ka helo. wuxuuna leeyahay seen dheer oo cabir ahaan gaarta 66 ilaa 84 sentimitir, waana mid si weyn u caawisa kolka uu ordayo ugaarsigana uu ku jiro. waa midda isku miisaanta jirkiisa kana caawisa dhanka jihada, waxayna siisaa awood uu si degdeg ah ugu bedeli karo jihada uu ku socdo, gaar ahaan marka uu doonayo inuu sameeyo orodka zigzaaga ah. intooda badan waxay ku nool yihiin koonfurta galbeed iyo bariga Afrika, waxaana jiraan noocyo ku nool dalka Iiraan kuwaasoo ku dhow inay dabar go'aan, waxayna haatan tiradoodu gaaraysaa ilaa 50 haramcad oo keliya. balse waxaaba hoos u sii dhacaysa tirada guud ee haramcadka, waxayna qiyaas la sameeyey sheegaysaa in sanadkii 1900 ay tirada haramcadku gaaraysay 100,000, halka 2010kiina ay gaartay tiradoodu 7,000 oo keliya. dabargoyntiisa waxaa kaalin weyn ku leh bini'aadamka, taasoo xaalufiya deegaanka iyo dabeecadda uu jecel yahay inuu ku noolaado. sidoo kale bini'aadamku wuxuu ugaarsadaa xayawaanada uu jecel yahay sida deerada. meelaha qaar wuxuu haramcadku kala kulmaa aargoosi sida beeraleyda Namibia oo dilaan kolka uu ka cuno xoolahooda. culayska haramcadku inta badan wuxuu gaaraa 31 ilaa 64 kilogram, halka dhirir ahaanna uu gaaro ilaa 40 fiit
ama 1.2 mitir. Haramcadku ka mid ma ahan xayawaanada aadka u xiiseeya inay u noolaadaan koox. Inta badanna midda dhedig ayaa jecel kali socoshada haddii aysan dhasheedu la socon, laakiin waxaa la arkaa kuwa lab oo koox ahaan iskula socdaan. Taariikhda waxaa ku xusan in haramcadku uu ka mid ahaa xayawaanada dadka la saaxiibka ah oo ay dhaqdaan, waxaana la sheegaa in masaaridii hore u adeegsan jireen dhanka ugaarsiga.